السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ميل كستو أجوكتان إيه سكستو آت نو داوانيسان كسو دوادا برنامج كميد برنامجان ugu talagalnay dhinaca baraarujinta iyo arrimaha bulshada waxaynu diiradda inuu ku saari doonaa mowduuca barnaamijkan uu noqon doonaa sidee ayaa lagu bedeli karaa Soomaalida hadaba barnaamijka waxa marti inoogu ah khabiir Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Roble Cilmi Boqore marka hore ku soo dhaw barnaamijka Roble wad maadsan tahay walaalkay Cabdirasaaq waan dhaw watay markaynu u guda galno barnaamijka su'aasha ugu horeysa hadaan ku weydiiyo sideebaad isleedahay waa lagu bedeli karaa dadka Soomaaliyeed adigoo waliba si cilmiyana noogu qeexaya اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dhamaan bulshadana daawanaysa marka xigta hadaan u galo su'aasha jawaabteeda anu waxaan isleeyahay waxa lagu bedeli karaa afar qodob haye afarta qodob oo kala ah waa qoyska waa degmada waa gobolka waa dawladda watay waxaad sheegtay afar qodob in lagu bedeli karo qodobka ugu horeeya oo kale oo aad tiri qoyska maxaad ka wada balino faahfaahin tusaale nasiib waxa weeyaan imika bulshada Soomaaliyeed markaad eegto waxa weeyaan qofku kama soo haro noloshu haday noqoto bulsho iyo haday noqoto dad iyo haday noqoto laba qof kama soo haro family inaga markaad eegto Soomaali ahaan berigii hore dhaqan baynu lahayn kaasi oo ah in wiilku gabadha markuu doonayo u doonanaan jirtay صح dabadeetana gabadha la oran jiray in hebel bay gabadhani u doonan tahay muddo ay labadan qof wada sheekaysan jireen muddo isfahmi jireen dabadeetana iyagoo isfahmay ayay labadan qof guri wada tagi jireen guriga markay tagaan waxa dhismaya marka waa dad isfahmay oo dibadii isku soo fahmay marka ay gurigii tagaan waxay sameeyaan waa qoys wadad dabeecadahooda isfahansan yahay noloshoodii isfahansan tahay dareensan gabadhu waxay necab tahay waxay jeceshahay iyadu la mid wiilku wuxuu necab yahay iyo waxay jeceshahay dadkaasi iyagoo isjecel markay awlaad ay halka timaado waxay ahaayeen bulsho ubax qurux badan umada ku soo kordhisay bil cagsi laakiin maanta waxa jira wiilkiyo gabadhii inay isbartaan maanta la meheriyo caawna ay wada aqal galaan aadiyad ayagoo aan isfahansanayn marka iyagoo isfahansanayn maxaa ka iman kara marka haye wata maanta dhibti wata maanta halka ay keentaan taaganay markaad leedahay qoyska marka aad tusaale aad u soo qaadanayso wadan ama bulsho qoys bay ka bilaabataa sax ama ay ka aasaasan ka asaasmaan marka waxaad leedahay mar hadii labadii qof ee nolosha wadaagay aysan isfahmayn way adkaanaysaa marka si lagu wada joogo oo Soomaalida waxyaabaha hadda isku fahmi la yihiin noloshii aasaaska ba ka maqan baad leedahay imika tusaale markaad eegto dhibaatooyinkan inta badan ka dhaxalnay dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyay burburkii dawladnimada waxa weeyaan intaas oo generation ba dhashay marka bulshadii imika dawlad la'aan ama burbur Soomaaliyeed waxaynu ku jirnay waa 3 generation aadiyad saddexda generation maanta cid uga sheekaysa ama wixii ka horeeyay ma jirto inaguna waxaynu nahay habeen dhali inta badan waxa maanta taagan oo baynu ka hadalnaa wixii berri shalay dhacayna kama hadalna waxa berri dhici doonana kama hadalna marka imika markaad eegto tusaale ahaan Sweden baynu deganahay gabadha Swedishka ah waxa lagu tarbiyadeeyaa ama lagu barbaariyaa inay noqoto gabadh dhisan rabtanin aan rabinin siday doonto u noolaato qofku markuu free uu yahay uu ka duwan yahay maxaad ka wada rabtanin aan rabinin maxaad ka wada kaba soo qaad haday gabadhani rabto inay qoys dhisato oo reer yeelato iyada u madax banaan sax wiilkuna waa saasi lamid ah waxa weeyaan labadan qof marka haday gabadhu rabto wiil oo ay rabto caruur waxay raadinaysaa wiil raba caruur iyo reer wiilkuna waa lamid haddaysan rabin gabadhu haddayna rabin gabadhu caruur waxay raadinaysaa wiil aan caruur rabin oo nolosheeda la qaadato oo la dhamayso wiilkuna waa sidoo kale inaga laakiin bil cagsi
la inama weydiiyo wiilku ama gabadhu wuxuu isma rabo weydiiyaan qof walba wuxuu rabo lama kaliya waxaan aaminsanahay kaliya dhaqan ah Soomaali ah waa ubaxa guriga caruurtu laakiinse ubaxan ayaa wada beeray qofku waa inuu raalli ka yahay baad leedahay waa inay labada qof raalli ka wada yihiin waa inay midna gacantan qabto midna gacantan qabto markaas maxaa imanaya markaas qoys dhismi kara qoys dhismi kara ilmahaasi marka ilmaha reerka ka soo baxa markaan iskuulka dhigan jirnay maxaa la oran jiray markaan safka ku jirno awlaad jacayl dhalay indhahaad ka garata aad iyo aad laakiinse maanta tiimay jirtaa maya maxaa keenay marka okay qodobka koowaad ay hadaynu ka gudubno qodobka labaad maxaad ku sheegtay degmada qodobka labaad waa degmo waxay ka dhisantaa degmo waa magaalo ama tuulo si aad u taqaaniin waa ninka maamula shakhsiga meesha maamulay haddii maanta shakhsi meesha loo dhiibo waay shakhsigan hore looga qaaday صح waay shakhsigan cusub loogu dhiibaya muxuu kani kii hore kaga fiican yahay muxuu si ummadda ka bedeli karaa la isma weydiiyo muxuu kani qabtay muxuu kani qabanaya muxuu inoo qabanaya maxaa markaa meesha yaala waxa weeyaan haddaad qof keento qofkii umad bedeshay صح tusaale ahaan haddaan u soo qaadana maanta waddankan aynu deganahay Suudaan waadiga arkay dukaan baad tagtaa alaabaad ka soo iibsataa صح dukaanka maanta halka cream ku yaalo haddaad cream u baahan tahay oo socoto khaanada bidixda cream ku yaalo mar walba waad soo qaadanaysaa xabadii creamki aad iyo aad haddii mar walba aad u baahato marka labaad maxay sameeyaan iyagu habeenkii baa la yimaadaa waa la bedelaa halkii creamka lagu dhigayaa baasto waxa laga yaabaa inaad baasto adoon u baahnayn inaad baastadii soo qaadato creamkiina aad soo qaadato maxaa loo sameeyaa waa qayb marketinga kamid ah waa isbedel baa la sameeyay macnaha wax cusub lama soo kordhin laakiin waxa la soo kordhiyay oo kaliya indhihii bulshada in xogaa wax cusub la tuso la jahwareeriyo oo waxa weeyaan maanta inaad dukaanka lagu tuso inuuna creamun iibin oo dukaanku wax badan iibiyo adigu laakiin haddii meeshii aad wax uga baratay aad ka soo qaadato de mar walba macna kuma sameynayso laakiin wixii haddii lagu bedelo waxa laga yaabaa inay xiise gaar ay ku yeelanayso haddii lagu dhigo Coca-Cola lagu dhigo Fanta lagu dhigo kulba wixii aanad u baahnayn inaad tiraahdo okay ne waan haraadsanahay ileen waa taas waxa sababa waxaan arkay Soomaali badan oo ka cabanayso oo dukaamada markay galaan tusaale ahaan ayagoo doonaya in ay soo iibsadaan litir caano ah bay waxay soo iibsadaan intaasoo waxyaabood ayagoo gali lahaa lacag adiga 20 karoon ah oo kale ama 30 karoon ah bal waxa laga yaabaa qofkaasi 300 400 oo karoon inuu kaga soo way badan tahay way dhowr jeer bay aniga lafteeda igu dhaxay marka waxa keenaysan u maleynaya marka isbeddelkaasi marka shakhsigan inaga maanta la inoo keenay ee degmada la keenay waa inuu ahaado shakhsi ka fiican kii hore aad iyo aad si uu ugu daydo kan isaga ka dambeeyina wixii uu u qabtay wax ka duwan inuu u qabto